Soomaaliya oo kale maxay ka qaban kartaa wadiga dabaaldega iyo qaraacda haye maxay ka qaban kartaa kaaga xabsiga ku jiray la galiyay walaa aanu farmaajiyo xilfadiisa aysan kaga soo saar karin soo ogid ilaa muuse dhaho sii daayad iyo shacabka dhaho mooyaane haya shacabka inuu muuse soo jiitay yahay iyo ciidankiisa waa ay dhahaan war gobolkan dadkan inaan gacanta ku haysanay bal xortooda loo sii daayay saxariilay sawdaay simantan jalaayay inta dumar filkeedii ugu sareysay aadniga sanbabada beerkiyo waxa saldhig ku leedahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتكم حجان كينا سودا عمر فشيال سودا وانا إذن هاي ملك استاتشوكتان مالين وناكسن قبل وناكسن وحين تهبي وناكسن ما إذن هاي سودا وانا إذن هاي وحرشينا إينا العافنا قبتين أصحابت غالية ما توحن كالله أرنير ما يري وين هاي لسعانود كشرتا إن قبل كسول قارها مقال مدحديس لسعانود intaydan u gudub galin waxaan ku codsanayaa subscribe-ta dhac nagu siisaan like-ta share-ta comment-guna inta uu dhiirigelinteeyeen weeyaan markaas waxaa soo dhawaada leenahay ku soo dhawaada meel laga jecel yahay ku soo dhawaada waxaan leeyahay xalay toole waxaa dhacday horta arrinka badda waa tuu soconayay indhood soconayay oo muddo soconayay aduu shalay baa lagu soo guuleystay oo guul laga keenay shacabka Soomaaliyeed maamul iyo shacab iyo dawlad iyo goboleed kulli aduu Soomaali weyn calanka doonayso hal haatee waxaa dhacday inay dabaaldegaan dalka joogaan dawladda joogaan inay dabaaldegaan baa dhacday in si aad iyo aad loo dabaaldegay oo shucuurta loo muujiyay baa dhacday laakiin reer Laascaanood xarfaantii reer Laascaanood ahay waa kuwa yiri ku dawadayada reerkaas dabaaldegay Soomaalida kale dabaaldegaysa waa tii ay markaa dabaaldegeen tabtii farmaajo loo doortay habeenkii ay u dabaaldegeen tabtii baa xalayna loo dabaaldegay waay baa lagu dabaaldegayaa miyaan damir jirin miyaan aqli jirin ma inaad jeelka aad ka jaqlaysaan baa rabtaa habeenii maalinba oo halka saanti iyo odaga dhikarka lagu kiciyo macaanka lagu kiciyo shacabkii waxaan idin leeyahay wax maqla oo waan tooba إلا توتسنسمن إلا أفتر نوغن وحاودان مراد إيدي ميجا أو دبا أسمسان إمتارا سمسان لامي بتانو قشن دادسانو قرر عليسان ودول كان كاسكال لامي إن كاسكال عندنا حدا قبتان عندنا إدين حاجة مس عندنا إدين ما يسان إدين هاي كلية حتى شعورتينا أدونس إن الموجسان سكالكم موجية وحليدهين madax baa leedihiin oo waxa leedihiin oyaal baa leedihiin waxa leedihiin iyo wax karda leedihiin shucuurtiina u soo bandhigta wasiir ama agaasime ama madaxweyne ku xigay ama hebel aduu ka jeceshahay waxa tiraahdaa saasa jirta markaas ninkii madaxda ahaa aad tirsaasa jirta aad ku tiri ninka marka madaxweyne muuse u sii gudbinaya marka musabixi ama xilka de ha ka balaaso haba ka cayriyo ama arintan gar weeyaan ha qaato shacabki hoos ha u fiiriyo waa baab weeyaan gaar yaala laakiin in shacabkii ama arday aha ama gabadh la qabo ur lahaato ama mid hadda shay ha noqoto marka dareen xasaasiyadeed uu ku qaado aad daf dhahdi laamigi dheeraad maadi maxaa marka faa'iido ku ah marka Ali Khaliif waa ilaahay ha u naxariistay ninkii lahaa وسيلايو كلها سيلايو dadkii waaga aan xidhay xabsida qaar baa ku dhalay wiina ma adan soo deeynin marka tiiba marka maanta jirta marka reer Soomaaliya inaad talaabo qaadaan ilaba ogola kowde waxa idin saaran cadaadis iyo caburis marka inta hawl kala dhici doonto ama wixii waa adduunyo weeyaan sida lagu waari maayo Soomaaliland waxay noqonaysaa dad shacabkii hoos u fiirisa oo sida hargeysa burciyo barbariya ay u dhaqmayaan shacabkoodu ay karas caloona ay u dhaqmaan bay noqonayaan shacabkii hoos loo eegayaa iyo magaaladii amba waxay noqonayaan dad go'aan qaato barti ka yimaadeen ku noqda marka reer Laascaanood ama dhubantaba marka uu qaato taladiisa qaato laakiin sidan iyo cid ku armayso waxaan leeyahay madaxweynaha Musabixi Cabdi shacabka caburiskan aad ku haysid biliis ka siida shucuurtooda ha muujiyaan Soomaali waa la wada yahay kuwan isaaq ay hargeysa u dhashay
kuwan berbere u dhashay kuwan burco u dhashay kuwan kale samaroone xag bari ma kasoo jeeda soo kuwan dabaaldegaya ma ahe ka dabaaldegaya ay sheegeen xamar iyo caalamka dhan maxaa loo odhan waayay war idinku naga leexma tidin Soomaaliya way ba loo odhan waayay marka waxaan leeyahay madaxweynaha mar labaad leeyahay madaxweyne dalka ada haysta dalka waa dalkii weeyaan shacabkaaga weeyaan sida kuwa hargeysa jooga aad u qiimeynaysid sida bilada aad u siinaysid kuwana u sii dadka la haysto lagu soo duulay xoog lagu qabsado waa la iska maslaxaayo waa la iska sijeediyaayo waxay doonayaan baa loo qabtaayo haddii dareen qaado waxaa la dhahaa war naga daaya la dhahaa waayo dalkii inta gacanta ku haystee muxuu yahay caburiskan marka waxaan leeyahay shacabka reer Sacaan waxaan leeyahay dib isu eega hadda Ilaahay baan ku dhaarshay bal muuqaalka ila daawada war hooyadin baa idinku tiri xor noqda miseedadin baa idinku tiri xor baa tihiin dabaaldego sidan yeela bal fiir bal muuqaalka ila daawada lama kala maqnay taariikh meel ku qoran weeye maanta ماشي دارين مثلات كوية عيايقهم ولي وأرن آدي آد لوغان حويان وأرن حويان لما أركين ولا مما مقال داد ساسا داد لهايستو سيداسا وداد والا ويان بالبهانته وداد عاول حادا ويان هدي ما أنت هذا اللي قوله ودافيان kii maanta hadalka ku yiri ma ahana waa iska qoslayaayo waa tan kaarkay dad soo saarayo leed maanta saasayaan kiyo qaadano kala dheero maanta waa dad calool xaaran weeyaan waa dad wanaagsan weeyaan waa dad dadnimada garanaya Soomaalimada garanaya weeyaan marka dadkan maamulkan haysta maamulku wuxuu ahaa waa haysataa sax waa lagu ogaadanaad gobolkiisa sida doontid aad ugu baashaashid waa lagu ogolaaday talaabo kastoo musabixi soo qaado ama soo sheego siday tahay baa looga dhaqmaa gobolka wax ka hostaaga iyo wax ka diidan iyo wax leh war anigu qaadamayna ma lahan taladiisii go'aankiisa waa loo raacaa marka loo raaco waxay shacabku inuu muuse soo jiitay yahayd iyo ciidankiisuba ay dhahaan war gobolkan dadkana inaan gacanta ku haysanee bal xortooda loo sidaayay bal taa kaliya madaxweyne Silaan yaa dhaafay oo Daahriya la dhaafay hadda Muuse jooga bal marna ma istiraayaan dalkan inta haysataan bal shacabkooda mar kaliya dareenkooda sii daaya taa hadeedaan dhihin wallahi waa nasiib darro weeyaan weligeed baa dawladda ku soo duuli jirtay weligeed baa shacab la qabsan jiray laakiin shacabka dareenkooda waa loo sii daayaa wixii khaldan baa laga celiyaa laakiin idinkoo dadkiini ka dabaaldegayaan meel alla og yahay inaad kuwan oo dalkooda joogan aad dhahdaan may dhahdaan waa khalad weeyaan marka anigu qiil siin maayo iyo reer Sacaan qiil siin maayo waxaan leeyahay joojiya waxaan wadaan dabaaldegana wadaan joojiya eedin meega mudaharaadkan wadaan joojiya waxaan wadaan joojiya dantiina garta dantiina waa la mooraan weeyaan magaalada indhaha soo kala qaata shacabkii wixii xumaynaya shacabka xumaynaya cadaas ama kibir lagu hayo taas waa ka doodi kartaan waana ka dhigay kartaan laakiin 18 May ma rabno qarracay waa mudaharaadnaaye shacabka gudana waxaas ma jirto qalbi anu shakhsiyan taas waa ka soo horjeedaa waayo de kuwa faa'iido maayo maxaa la qaylinaya la qarracleynaya dadkan aan tusay leeyahay Sacaan maanta saas ka dhacday oo dacalankii Soomaaliya marna la qarinayo mar taayirkii lagu weeyo mar laamigii la dhagxaynayo dadkan maxay ku qabanayaan hadda xamar iyo caalamka basha caalamka dhan maxay ku qabanaysaa haddaad macsuurkaaga tustid maxay ku qabanaysaa waa raas caalamada oo dabaaldegaya amba mudaharaadaya bis laakiin dhibtii aday ku haysataa aday si wacan ku haysataa marka dib isku noqda dhalinyarada baa tihidiin wax soo bartay baa tihidiin dalkiina iyo amnigiisa idinka iskale inaad ka shaqaystaan Somaliland amnigaaga ma soo karto haddaad adigu aadan sugin wiilkaagan dhexda ka xiranaya wiilkaagan timaha kala xirxiraya gabadhaada maryaha noocan xiranaysa taada wadaada wiilkaagan wadaadka adiga dalka iskale amnigiisana adaa waxaan karo ka waardi ka ahaan kara
laakiin waxaanu ka digayaa uun dabaaldegaas la dabaaldegayo marka Soomaaliya wax yar qabsadaan waxaan ka digayaa maalintaas in aad tiraadeen waa qashin gurki weeyaan dad xorahoo ama hadda baldegaan ama ha mudaharaadaan hadhowto aan xuloo geysanayo oo xabsiga aan la geynayn baa sameeya laakiin dad marna xabad la dhacayo mar xabsi la dhacay la gelinayo maxay intarasaan hadda Soomaaliya kale maxay ka qaban kartaa wadaga dabaaldegayo qaraacda haye maxay ka qaban kartaa aga xabsiga ku jiray la geliyay walaa aanu farmaajiyo xilfadiisu aysan kaga soo saar karin soo ogid ilaa muuse dhaho sii daayad iyo shacabka ay dhaho mooyaane ama kacaan madax dhaqameedyada la sacaan kacaan garaadadu kacaan cuqaashu kacdo mooyaane laakiin nin ku soo gurmanayo dooda dhex kaga yimaada xaraam ha ku sheekayn marka waxaan leeyahay danteena karta yahay Soomaaliland waa Soomaali way dabaaldegayaan sibaha gobolka lagu diidan yahay la leeyahay dabaaldegina ilaa ay hadda ma garanin marka khayr baan rajaynayaa muuqaalkan hadaad ka heshay hadaad ka helin waxaan leeyahay inaad like ta dhax ku siisid subscribe ta dhax ku siisid commentiga oo qurux badan aad soo bixisid insha Allah ta'ala khayr bay noqonaysaa wax walba filo khayr wala filo waxaan kaga tagayaa assalaamu alaykum